عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن فرحان أو إذن له وحكلين نبر إله كبرياء إنه عمل دير عافمات عبادة السجن وكل جنسية وعن كلا أنت أقدر عليه أنت قف حنوصان إنه إلهي حنونك وكقاضي أنت ملوك صار إله ملوك صاره أنت عافمات استنى عافمات كلنا وزيادة ما أنتوا حكاه دونا أرن أد مهمة أو أنك داودي نيوزك وحسوق لي channel كا أو WHS11 و channel oo magaalada Louisville Kentucky local channel oo ah wararkiisana aad oo la socdo waxay soo galiyeen maalinkii Khamiista waxay dhaheen nin dhalinyaro ah oo African American ah ayaa wuxuu aaday maqaaxi dad wada cunteynayaan labada fadhiyo habeen ay tahay 11 o'clock bastoolad buu soo qaatay maaskiga uu xiran yahay video ayaa insha Allah na tusinaya bal ila daawada wuxuu sameeynaya ila daawada wow kasa waxa arkaysaa uu wareegaya markuu wareego qof walba u tagaya ka bacdi telefoonadu ka qaadanaya wuxuu ka qaadanayaa lacag waxay haystaan cash ah laakiin muu ku fikirin America waxa la yiraahdo dadka ee qoryaha badan there is more guns than people dadka badanna boqolkiiba 80 waa dad hubeysan waa ama madow ahaado ama brown ahaado ama cadaan ahaado marka wiilkii markuu wixii arruusaday gadaal baa laga toogtay nin oo qadeynay isagana meesha fadhiyay ninka la fadhiyay markuu soo galo waxa arkaysaa isla markaas wada fiirisid video-ga si fiican ninka qorigiisu ayuu diyaarsanayaa markuu ninkan arkay isla markii uu qacantiisa hoos aadaysa hada si fiican u fiirisid bastooladu la soo baxaya markuu isaga u soo dhawaado uu si jeesto ayuu madaxa ka tooganaya marka warbaahinta newska waxay soo qoreen ninka maqaaxida iskale ownerka ah wuxuu u mahadceliyay ninka dilay marka waxa kale oo isku qoran markuu ninka dilay lacagtii uu ka qaaday oo dadka ka qaatay telefoonada ka qaaday qof walba uu celiyay bastooladii uu isaga wateenay yarka African Americanka oo wax dhacay intuu ka qaaday ayuu darbiga ku dhuftay marka waxa kale oo la sheegay booliiska markay yimaadeen ninkan kaligiisa loo imaaday ninkii wax dilay dadkii kale waa gooyeenno biiw ya qof kasta xitaagay aniga meesha ma lagu sawiraay ma jecel dadka badanaa in camera iyo newska ay qabtaan marka ilaa hadda dawladda sida la sheegay Houston police-kooda ilaa asagana ku socda investigation intaas warka maraya waxa marka warkan u soo qaatay muhiimadiisa ay tahay dhalinyaro waxa jiro oo aniga ata coach u han jiray Browniga ciyaarsin jiray oo hadda qori ku arkay waxa idin leeyahay qaarkoodna xabsi ku jiraan intii ilaahay banaanka joogtana ilaahana u badbaadiyo carruurteena dhalinyaro Soomaaliya wadankan marka falcaga yani arimahaas oo kale ku fikiraysa in bastoolad qaadatid dad soo dhacday waxa ogaataa 99% adiga naf ina meesha uga soo baxaysid chance-kaaga inuu yar yahay because I believe it wadankan boqolkiiba 80 jiri dadka waa hubeysan yihiin so qofka haduu qorku arko adoo qofka dhac iska dhaaf qofka ka dambeeyo ama qofka customer-ka laga yaabaa inuu ku dilo waxba aan la weydiinin so marka waxa ka fikirtaa koo naftada halis gelinaysa laba qof kale naftiisa halis gelisay saddex family-gaaga murugi dhibaato u keentay afar adiga taa xabsi ku dambeynaysa dadka ficladan oo kala galo oo armed robbery baa la dhahaa armed robbery waa felony wuxuu qaataa 15 to 20 years ugu yar waa isteeda ugu yar waa so please halaga taxadaro meelahana publicana ilaahayna u badbaadiyo hana safety markuu waxa kala dhaco waxaan kula talin hataa hadaa hubeysantaa adiga qofkaas oo kale wax dhibaato u geysan waxa siin karta iska sii because waxa laga yaabaa isaga inuu qorigiisa uu qori sax yahay uu ku toogto marka waxa idin leeyahay waa intaas uga baxaya warka make sure in channel-kana subscribe sar si aad warar badan iyo information aad ku anfaco aad ka helayso